ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku guda jiro toddobaadkii ugu horeeyay ee shaqada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa bilaabay xoraansi la xiriirta soo xulista golihiisa wasiirada ee uu ku shirtagi doono waxaana la filayaa sida saadaashu sheegayso in wajiyo badan oo aan cusbeen lagu arki doono xukuumadda cusub. golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ka imaan doona saddex jiho oo si weyn saameyn ugu lahaa dib u doorashada madaxweyne Xasan Sheekh waxaana goluhu u badnaan doona xisbiga UPD ama hogaamiyaashii xiliyada adkaa soo mootiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. sida xogaha la helay ay sheegayaan waxaa golaha wasiirada saameyn ku yeelan doona ra'iisul wasaaraha xafiiska Beneeye Maxamed Xuseen Roble kaas oo door lixaad ka qaatay dib u doorashada Xasan Sheekh waxaana la filan karaa in ugu yaraan Roble uu la imaan karo saddex wasiir oo qayb ka qaatay dagaalkii adkaa ee uu la galay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. garabka saddexaad ee golaha wasiirada la filan kara ayaa dhanka hogaamiyaashii muuqda ee daljir gaar ahaan madaxii ololaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ama haddii aan si kale u yiraahdo gudoomiye ku-xigeenkii hore aqalka sare Abshir Buqaari iyo saaxiibadiisa kale ee doorka muuqda lahaa doorashada. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre ayaa wajihi doona xulasho adag oo dhanka golaha wasiirada ah gaar ahaan xubnaha beel ahaan ka soo gala federaalka Galmudug iyo Hirshabelle kuwaas oo ay jiraan xubno isku qoonda ah hase ahaatee aan kala miisaan yareen sida Al-Cadaala oo ka imaanaya dhanka Roble xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa iyo Abshir Buqaari kuwaas oo xulashadoodu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku kasban karo godob siyaasadeed inkasta oo ay jiraan siyaasiyiin kale oo sidaas isku sidkaya. ilaa iyo haatan xubnaha la xaqiijiyay in si kastaba ay ka mid noqon doonaan golaha wasiirada waxaa ka mid ah xildhibaan Dr. Cilmi Maxamed Nuur oo ay xoguhu sheegayaan in loo wado wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa ka mid ah xubnaha la xaqiijiyay xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Cumar oo isaguna ka muuqan doona golaha wasiirada iyo sidoo kale wasiiro kale oo ay ka mid tahay xildhibaan Caashe Koos. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa ayaa la tilmaamayaa inay u sahlan tahay xulashada wasiirada ka imaanaya Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo kuwa gobolada waqooyi oo aysan jirin siyaasiyiin waaweyn oo saameyn ku leh ama galaangal toosan ku leh. hase ahaatee waxaa la eegi doonaa siday uga gudbaan doorashada wasiirada ku abtirsada Galmudug iyo Hirshabelle. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u wajahaya dhaliil kaga imaanaysay maamulada qaar iyo siyaasiyiin kale kuwaas oo si weyn u rabay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka hor inta aan loo magacaabin Xamse Cabdi Barre. siyaasiyiin badan ayaa la fili doonaan kadib magacaabista golaha wasiirada inay noqdaan mucaaradka dowladda inkasta oo haatan siyaasiyiin badan ay ku raad joogaan xilal wasiir ama kuwo kale. haddaba golo wasiir oo caynkee ah ama noocee ah ayaa laga filan karaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. fadlan aragtida noogu rab qaybta hoose ee warbixintan.